Sanad wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabay xiriyaha qaxootiga Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari ee dalkani Kenya maanta waxaa ka dhacay xus lagu xasuusanayo qaabkii ay ku aasaasantay xiriyaha waaxirada qaxootiga ee Dadaab gaar ahaan hayaankii ay Soomaalidu u soo galeen inay halkaas ay soo gaaraan intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya sidoo kale barnaamijkaas xuska waxaa lagu xasuusanayay ama lagu dhiirigelinayay dadka nugul ee xirada qaxootiga ee Dadaab ku nool warbixin arrinta ku saabsan waxa halka inooga soo diray wariyaheenna Bashir Gaxno hargal wanaagsan daawadayaal hadalhaynta xiriyaha Dadaab ayaan ku eegaynaa doorka hay'adaha samafalku ka qaataan daryeelka bulshooyinka qaxootiga Walk to my way waa odhaahiya halqabsi munaasabad hay'adda LWF ay ka qabatay gudaha xiriyaha qaxootiyada waana munaasabad sanad walba lagu qabtay xiriyaha Dadaab munaasabada ayaa ujeedkeedu ahaa dhiirigelin iyo in la xasuusto waqtigii adkaa ee la soo maray xilliyadii dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay deeq bixiyaal iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay hay'adda LWF oo ay ka mid yihiin waayeelada dadka naafada ah iyo ardayda wax ka barta dugsiyada hoose dhexe xiriyaha qaxootiga Dadaab socdaal qaatay ku dhawaad hal saac kadib ayaa waxaa la soo jeediyay khudbado diiradda lagu saarayo wixii la soo maray iyo waxqabadka hay'adda LWF magaca George Omondi magacaygu waa George Omondi waxaan idinka mahadcelinayaa imaanshaha xaruntan waxaan maanta isugu imaanay ka qaybgalka socdaalkan waxaana jirta taariikh iyo sheeko dheer oo looga gol leeyahay socdaalkan maanta waxaynu dhammaanteen xusuusanaa haddaan milicsada dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka Soomaaliya kaasoo sababay barakac iyo dhimasho badan oo ay soo mareen qaxootiga Soomaaliyeed inta ugu badan qaxootigan Soomaaliyeed waxay soo mareen socdaal dheer ugu dambeynna waxay soo gaadheen dalkan Kenya si ay ugu noolaadaan qaxootinimo deegaanka Dadaab waxaana jira deegaanka Dadaab hay'ado badan oo ka hawlgala oo ay ka mid yihiin LWF iyo UNHCR iyo kuwa kale oo badan iyagoo dakhliga ka hela deeq bixiyaal kala duwan oo ay ka mid yihiin deeq bixiyaheena Australian Lutheran World Federation by our bilateral partners like Australian Lutheran World Federation in Australia. dhanka kalena guddiga xiriyaha qaxootiga Dadaab oo qayb ka ahaa munaasabadan la magac baxday Walk to my way ayaa dhankooda ka mahadceliyay daryeelka iyo waxqabadka hay'adda LWF ay la garab taagan tahay dadka ku nool xiriyaha qaxootiga waxayna guddigani codsanayaan in la kordhiyo dakhliga loo qoondeeyay in lagu daryeelo dadka qaxootiga sifo loo helo shaqo abuur daryeel caafimaad iyo waxbarasho ku filan waxaan ahay gudoomiyaha guud ee Xagardheer Camp Jaleedi waxaan salaamahayaa hay'adda LWF oo xilfadan maanta soo qaban qaabisay waxaana baaq u dirahayaa hay'adda Australia degan ee deeq bixiyaasha ah ee LWF hay'adda la dhahay xiriyaha Dadaab degan gacan ka geysato waxaan deeq bixiyaasha ka codsanaynaa waxbarashada hay'adaha xiriyaha Dadaab ka socday aad iyo aad bay awal u fiicnaayeen oo nagu faraxsanayn hadda xoogaa budget la'aan hoos bay u dhacday shaqaalihii farada badnaa ee dhalinyarada macallimiintii shaqaynaysa dhan waa la daadiyay budget la'aan dartii hay'adaas waxaan ka codsanaynaa in ay budget wanaagsan intay hadda bixinaysay afar jibaarkeeda bixiso oo kaamka dhibana joogo waayeel xiriyaan dhalinyaro shaqo la'aan wax walba ay shaqo abuur u samayso waxaan ahay chairmanka LWF ama naafada qaxootiga Xagardheer ayaan ahay waxaan la shaqeeyaa hay'adda LWF baan la shaqeeyaa waxaan ahay chairmanka dadka waaweyn ee waayeelada ayaan ahay markay sidaa ay tahay waxaanu gacan ka helaa oo na caawisa oo nooga soo dhiibta deeqda dawladda Australia ayaa na caawisa waxaanu leenahay mar haddii aynu macnaha nahay dadka da'da ah iyo dadka curyaamiinta ee naafada ah arrintaas waanu ka mahadcelinaynaa waxaan ka hadlayaa hay'adda AWS oo deeqda siiso LWF deeqda siiso oo maanta aan socod u soo galnay socodkaasoo ku garab taagannahay hay'adda AWS aan ku garab taagannahay iyadoo deeqdana siiso deeqdaasoo
oo xagga waxbarashada xagga naafada xagga eldaliska dhammaan deeqda ayna siiso way ku mahadsan tahay waxaan rabnaa marka inay loo laba jibaarto safa tayada waxbarashada ardayda primariga ay hor u marto Bashiir Geexnuga RTN hargalka xiriyaha Dadaab